waxaan ka xumaadaa oo aniga aan aad uga xumaadaa waxay tahay caruurta inta la geeyo kolajyada lagu xirayo dadayna aqoonin dhaqan aqoonin lagu xooraayo oo ilmahaas waxay ku sugan yihiin aadan ogeyn marka sababta ugu badan in Soomaalida ay mar walba xoog saarta Soomaaliya qaasatan ay yiraahdaan caruurta halkan waa ku halaabayaan caruurta halala carar dadka dhahaya maxaad leedahay wallahi caruurta aniga kula hadlay Soomaali waan geeyay Soomaaliya waa wadankooda waa la geyn karaa laakiin waxaa la geyn karaa inay dhaqankii soo arkaan dhaqankii Soomaalinimada haddii quraan sanadkaas ku soo xafidayaan haddii dadkoodii ehelkooda soo baranayaan dhaqankii taas waa qabaani wadankii waa muhiim in la geeyo ilmaha soo baraan inay Soomaaliyiin la soo baro laakiin ma qabo in lagu tuuro maarta ama ilmihii lagu iloobo ama cunugii maarta hadda caruuraha maalmo bay ka qayleen xadaan waalidkan way naqaadaan way nagu cadaadiyaan waxaan ka xumaadaa oo aniga aan aad uga xumaadaa waxay tahay caruurta inta la geeyo kolajyada lagu xirayo dadayna aqoonin dhaqan aqoonin lagu xooraayo oo ilmahaas waxay ku sugan yihiin aadan ogeyn oo ilmihii ma lagu abuse gareeyaa ilmihii ma lagu bulun gareynayaa ilmihii cunug yar wadankan ku dhasho hadli karin oo miskiina intaa geyso waa dhaqan celina u sameyn intaa tiraado oo ka waran aad meel u aqoonin iyo dad u aqoonin lagu soo xiro oo dhibaato maskaxiyan u gaarto oo cuqdad kuu qaado cunugaas bari maxaa ka sugaysaa marka dhibaato wadanka in la geeyo waa qabaa raac adiga asoo waalid mata haddii labada waalid raaci kara hal waalid ka mid ha raaco dhaqankaas soo barto sanad labaha soo joogo saddex celi hadduu ku dhaho celi ku soo celi wadankiisa wadankan waa ku tarbiyaysan kartaa haddaa ilaahay la kaashato haddaa dadaasho wixii qoran hadduu wadankii joogo hadduu halkan joogo waa ku dhacay cidna kama celin karto ilaahay subxaana watacaala tala saaro